xisbiga talada dalka haya ee UDA maalinnimadii Sabtida waxa uu ismaamulka Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ka daafuray xafiis uu halkaas ku yeelanayo. Tani iyada xisbiga waxa uu ugu talagalay shacbiyadda uu ku leeyahay Mandera in sare uu u qaado. Munaasabadaas daafurka hadaba waxa ay dhalisay hadalhayn aad u weyn oo ilaa iyo haatan bataagan. Hadalhayntan iyada ah ayaa waxa ay timid kadib markii xubno ka tirsan xisbiga UDA oo munaasabadaas ku sugnaa ee weerar afka ku qaadeen xisbiga UDM iyaga oo sheegay in UDA ay ka shacbiyad badan tahay xisbiga UDM marka laga hadlayo Waqooyi Bari iyo Mandera oo maalintaas ay ku sugnaayeen. Munaasabadan xubnihii ka hadlay waxa ay inta badan sheegeen in UDA ay afka ciid u dari doonto UDM taas oo keentay in UDM ay arintaas ka jawaab celiso iyadoo uu horkacayo hogaamiyaha xisbigaas ahna senatarka ismaamulka Mandera Ali Ibrahim Roba. Senator Ali Roba ugu horeyn waxa uu si gaar ah ugu jawaabay xildhibaanka Garissa Township Deeqo Barrow kaas oo munaasabada daafurka ah ka sheegay in UDM musharrixi u tartamayay 2023 uu kaga guuleystay doorashadii ku celiska ahayd ee ka dhacday Garissa Township kadib markii Aadan Ducaale oo kursigaas Township loo soo doortay 2022 loo magacaabay wasiir ka tirsan maamulka madaxweyne William Ruto ee Kenya Kwanza. Roba waxa uu u qiray UDA iyo Deeqo in doorashadaas ku celiska ay kaga guuleysteen iyadoo Deeqo uu helay 11,572 cod waxaana uu sheegay inuu ka guuleystay Nasir Mohamed Dolaal oo UDM u tartamayay helayna 8,158 cod. si kastoo ay noqoto waxa taas iyada uu sheegay inay ka dhigneed xisbiga UDM shacbiyadiisa Garissa eber inay ka soo kacday xilligaas 47% ay markaas gaartay. waxa uu si saadaaliyay 2027 waxa dhici kara qof walba in uu saadaalin karo isaga oo si gaar ah farta ugu fiiqay Deeqo Barrow oo uu sheegay in loolan adag 2027 uu markaasi la kulmi doono. Roba oo wali jawaabihiisa wada waxa uu ku tilmaamay xubnihii xisbiga UDM weerarka ku qaaday inay yihiin kuwa doonaya madaxweyne William Ruto oo Waqooyi Bari booqanayo in ay u sameeyaan bandhig kaamirooyinka loogu talagalay oo uu sheegay macno weyn inuusan ku fadhinin. waxa uu dhanka kale su'aal geliyay halka xubnahan ay ku maqnaayeen labadii sano ee la soo dhaafay oo UDA waxa xafiis aysan ku lahayn Mandera. xildhibaanka Garissa dhankiisa waa Deeqo Barrow ee waxa uu ka jawaabay qoraalka Senator Ali Ibrahim Roba waxaana uu sheegay in loolankooda uu noqon doono Mandera oo Garissa aan la isla gaari doonin isaga oo markaas ku goodiyay 2027 in la aasi doono xisbiga UDM. Senator Ali Roba iyo xisbigiisa UDM oo ka jawaabayay furitaankii xafiiska UDA waxa ay isku soo bax axadii ku qabteen Mandera waxaana ay sheegeen intaasi jawaab ay markaasi u tahay qof waliba oo shaki ay kaga jirtay UDM awoodda ay ku leedahay ismaamulka Mandera iyo shacbiyadda ay ku leeyihiin. marka laga soo tago xubnaha xisbiga ka tirsan UDM ayaa hadalladan iyo sidoo kale xifaaltanka kadib waxa ay taageero ka helaysay shakhsiyaad magac ku leh bulshada gobolka Waqooyi Bari iyo guud ahaan dalka waxaana shakhsiyaadkan ka mid ah qareenka lagu magacaabo Axmed Naasir Cabdullaahi oo si weyn u taageeray UDM. Axmed Naasir waxa uu ugu baaqay siyaasiyiinta iyo shacabka gobolka Waqooyi Bari madaxweyne William Ruto marka uu booqdo Mandera in ay markaasi hal cod ku wada hadlaan isla markaasina ay taageeraan xisbiga UDM. isku soo wada duuduubo UDA aqlabiyadda aqalka baarlamaanka ee dalka iyo sanadkaba iyaga ayaa haatan hayo xisaab kale ama xisbiyo kale ayay shirka ku leeyihiin waxaana kamid ah xisaabta ku suurageliyay in aqlabiyadda ay noqdaan xisbiga UDM waxa ay Waqooyi Bari markaasi ku leeyihiin 4 xildhibaan oo Mandera ah wakiilka haweenka ismaamulka Mandera gavanaha Mandera senatarka Wajeer iyo sidoo kale senatarka Mandera iyo ku dhawaad 70 MCA oo guud ahaan dalka ay ku leeyihiin. haddaba yay kula tahay gobolka Waqooyi Bari uu ku awood badan yahay ama ku awood badanaan doono 2027 UDA ama UDM.